ka waran haddii aan kuu sheego in siyaasiyiinta maanta murmaya ay beri sii jiri doonin laakiin Soomaaliya ay sii jiri doonto. Ka waran haddii aan kuu sheego in hadal keliya uu dhaawici karo qaran dhan, in ereyo aan la miisaamin ay niyad jabin karaan askari habeen iyo maalin u taagan difaaca shacabka Soomaaliyeed. Dambaalka maanta ee Sheekh Maxamed Idriis ma ah dambaal caadi ah, waa digniin, waa fariin, waa qeyladhaan ku socoto siyaasiyiinta, shacabka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Siyaasaddu way dhammaataa laakiin qaranku wuu haraa. anaga ardayana neerfa naga dhigteen anaga muddo kordhin kuma qanacsan hadana shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed waxa u sheegaynaa madaxweynaha waqtigiisa uu qaatay halaha yar oo u dhiman Soomaali weyn inay u lacagayso wadankan ugu baxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada walaalayaal muuqaal cusub. Maanta waxaa falanqeyn qoto dheer ku sameyn doonaa qoraal culus ee uu Facebook soo dhigay Sheekh Maxamed Idriis. Qoraal si weyn looga hadlayo baraha bulshada, qoraal taabanaya arrimo muhiim u ah jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Qoraalkaas wuxuu ku saabsan yahay ciidamada qaranka, qarannimada Soomaaliya, siyaasadda iyo mas'uuliyadda hadalka. Maxay tahay fariinta uu Sheekhu doonayo inuu gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed? Maxayse tahay casharka aynu ka baran karno? Bal ila soco ilaa dhammaadka muuqaalka. حسنو محاد لحظي أفرت سمانا الإصدور جل هلا إصدور وقتك وادا ماذي برلمان كان ماشي فرديو برلمان كان ماشي فرديو وقتك وادا ماذي مكردين كرنيا مكردين كرو انت لو لابها مرك وهذا هذا الكي يتندى هاللون نقض هل كاسي مصلحة الجرتامية ماشي أسام مصلحة الجرتاي ما أنت أديك حكوتي دنتا مرك qaybta koowaad maxaa ka careysiyay Sheekh Maxamed Idriis wuxuu hadalkiisa ku bilaabay walaac ku saabsan hadallo badan oo bariyahan dambe ka soo baxayay siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kala duwan. Wuxuu sheegay in mararka qaarkood dadka qaarkood ay hadallo ku raadsadaan magac, taageero ama dano siyaasadeed, laakiin aysan ka fiirsan saameynta hadalladaasi ku yeelan karaan dalka. Marka warbaahinta caalamku qabato hadalladaas, marka Al Jazeera iyo warbaahin kale ay baahiso, ma dhaawacmayaan qof kaliya, waxaa dhaawacmaya sumcadda Soomaaliya, waxaa dhaawacmaya kalsoonida shacabka, waxaa dhaawacmaya sawirka qaranka. qaybta labaad, ciidanku yaa leh. qodobka ugu muhiimsan ee qoraalka Sheekha wuxuu ahaa ciidamada. Wuxuu yidhi ciidanka xoogga dalka qaranka ayuu leeyahay, qarankuna shacabka ayuu leeyahay. macnaha hadalkaasi waa mid qoto dheer. Ciidanku ma laha qabiil, ciidanku ma laha xisbi, ciidanku ma laha siyaasi gaar ah. Ciidanku wuxuu u shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed. marka askari xuduud joogo, marka askari qarax ka hortagayo, marka askari naf u hurayo dadkiisa, waxa uu difaacayaa qof kasta oo Soomaali ah. sidaas darteed hadal kasta oo dhaawacaya niyadda ciidanka waa arrin mudan in si taxaddar leh loo eego. qaybta saddexaad, siyaasaddu ma ka weyn tahay qaranka? taariikhda adduunka marka la eego, dalal badan ayaa soo maray murano siyaasadeed. xisbiyo ayaa yimid, xisbiyo ayaa tegey, madax ayaa xilka qabtay, madax ayaa xilka ka degay, laakiin waxa sii jiray waa qaranka. Mareykanka maanta jira, Jarmalka maanta jira, Turkiga maanta jira, waxay ka hormariyeen qaranka siyaasadda. taasi waa fariinta ugu weyn ee qoraalka Sheekh Maxamed Idriis. siyaasaddu way isbedeshaa, laakiin qaranku waa inuu sii jiraa. qaybta afaraad, casharka dhalinyarada. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ka fogaadaan nacaybka siyaasadeed. waxaa la gudboon inay ka shaqeeyaan aqoon, midnimo, qaran jacayl. qofka maanta aad taageersan tahay biri xilka wuu ka degi karaa. ha ahaado Farmaajo, ha ahaado Dal Xureeye, ha ahaado Xasan Cali Khayre, ha ahaado Shariifka, ha ahaado Cabdiraxmaan Cabdishakuur. hadday xilka qabtaan beri way ka degi karaan, laakiin Soomaaliya way sii jiri doontaa. sidaas darteed qarannimada ka hormaray siyaasadda, dalka ka hormaray shakhsiga, midnimada ka hormaray khilaafka.
gabagabadii dambaalka sheekh maxamed idriis wuxuu ina xasuusinayaa hal xaqiiqo siyaasaddu waa ku meel gaar qarankuna waa joogto siyaasiyiintu way yimaadaan wayna tagaan laakiin Soomaaliya waa inay sii jirtaa su'aasha aan maanta idin weydiinayo waa tan ma kula tahay in siyaasadda Soomaaliya ay ka hormartay qarannimada mise qarannimada ayaa weli ka muhiimsan wax kasta aragtidaada ku kor qaybta faalooyinka haddii muuqaalkan ku anfaco like share garee subscribe ha ilaawin aniguna waxaan idin rajaynayaa nabad horumar iyo Soomaaliya oo xoogan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا